warqadatan waqtiga ugu habboonay oo in la soo saaro ay ahayd ayaa la soo saaray warqadatan waa marka waxaan isleeyahay inay tahay waqtiga ugu habbooneed oo la soo saari lahaa madaxweynaha marka horeba isaga ayaa magacaabay guddiga marka maxaa keenay inuu haddana ka daba hadlo oo go'aanadooda madaxweynuhu waa madaxweyne Hirshabeelle waaye go'aamada ugu dambeeyana madaxweynuhu asaga ayaa iskale guddigana markii la magacaabay ma ahayn guddi doorasho oo madax bannaan wuxuu ahaa guddi farsamo technical ayuu ahaa kaliya marka shaqadu wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka mas'uul ah iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo kordhinaysa ayaa ka mas'uula doorashada laakiin guddigan wuxuu ahaa guddi farsamo oo kaliya ayuu ahaa marka guddiga hadda sidaas ku arkaysaan warqadda madaxweynuhu uu soo saarayna guddigu ma dhamaystirna qaar ayaa dhiman laannahu wuxuu noqday rag kaliya ayuu noqday oo haween laguma darin marka waxaa la yidhi jandarka hala ilaaliyo waxa lagu soo daro oo haween waxay ahayd guddiga in la dhamaystiro markii la dhamaystiran si uu arkooda la sameeyo ay ku shaqaynayaan si uu arka markii la sameeyo kabacdi in ma aragtay hawsha lagu gudbo waa tahay wasiir adigoo raali ah marka hore uu madaxweynaha magacaabayay ee guddigan maxaa looga fakari waayay in kaalinta haweenka ay meesha ka maqan tahay maxaa hadda un dhaliyay adiga arrintaas khalad dhacay bay ahayd marka haddana adduunku waa la diiday cid kastaa ka hortimiday lagama fikirin marka hore guddigaas markii la dhisayay 3 xubnood ayaa u diyaar hadda lagu dara ayay ahayd marka guddiga ayagoon dhamaystirnayn oo qayba ayay go-aan ka gaareen wax kaloo dhibaato ah ma jiraan mana isdiidayaan guddiga madaxweynaha magacaabay waxaa kamid oo guddoomiye u ah wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan oo guddoomiye degma ah wasaaradda arrimaha gudaha oo hoos yimaadaa marka diidan ma aha kulli waa systemka ayaguna waa dadaalayeen oo waxay lahaayeen bal shaqada iyo waxa la qabto laakiin waxaa soo baxday haddii hadda qaabka ayagu ay u wadaan waxa loo qabto in ma aragtay wax kale ay halaabayaan marka si aan wax kale u halaabin darteed ayaa madaxweynuhu warqadda u soo saaray arrimaha dib u heshiisiinta iyo awood qaybsiga muddo ayay soo taagnayd marka haddii uu isaga xal gaari waayay maxaa guddi farsamo ka quseeya maya guddiga farsamada wax ka quseeya ma jiraan mana la haysto guddiga farsamadu waa dhisan yihiin waa guddi farsamada jadwalka hadhowli oo ma aragtay shaqada ayaga waxbay ka samayn doonaan laakiin waxay ahaanaysaa shaqa loo dhan yahay oo wasaaradda doorkeeda uu ka muuqdo oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ay dul taagan tahay wasaaradda dib u heshiisiinta doorkeeda ay qaadanayso dib u heshiisiinta shaqadii la qabanayo oo amniga la diyaariyey kaasaa lagu iclaamina laakiin hadda qaabka hadda loo iclaamiyey ayaa waxaad moodaa iyo xaaladda Hirshabeelle in ay kala culus yihiin waa intaas wax weyn oo dhibaataha kuma jiraan meesha wixii maanta la sameeyo haddii loo arko in uu khalad inuu ka imaanayo waxay dadnimaday kamid tahay in la yidhahdo la soco haddii guddiga uu ku adkaysto inuu shaqadiisa sii wado maxaad samayn doontaan guddigu ma ku adkaysan karo guddi la magacaabay waaye oo maaragtay waana technical guddiga waa farsamo ma ahan guddi madax bannaan ma aha taas intaan kaa rabaa suuragal ma ahan in ma aragtay wax khilaaf ay ka yimaadaan wax dhibaato ah kuma jiraan guddiga madaxweynaha magacaabay warqadda madaxweynaha soo qoray hadduu rabo waa kala diraa awoodu u leeyahay hadduu rabo wasaaradaha oo hadda u magacaabuu le waa ka bedela wasaarad kalan u diraa madaxweynuhu awoodda asaa iskale gacantii asaa loo doortay Hirshabeelle asaa u madaxa marka ma laga yaabaa in hogaanka Hirshabeelle ay ku kala qaybsan yihiin arrintan oo qaarkiin aad la ogtihiin guddiga ma aaminsani arrintaas inay jirta ma aaminsani Hirshabeelle madaxdeedu kalama qaybsana waa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo maaragtay mowqifkooduna kalama duwana marka wax khilaaf oo madaxweyne aan ku khilaafi karna ama madaxweyne ku-xigeen aan ku khilaafi karna ma jira waad ku mahadsan tahay dhammaan taladaada iyo aragtidaada waxyaabahaad leedahay waa loo baahan yahay in lagu soo daro janalkan fadlan qaybta hoose nagu reeb